بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج كان جاركا أها عنو مقعدرني أديغا يو بلشدا حلقتين اللواد برنامج كمان توحان كسو قادنينا حقوق ذادا يو واجباتك قفك فردق أو حوليها حقوق يو sidoo kale waajibaad ayuu leeyahay marka waxaan ka hadlaynaa xuquuqda qofka iyo waajibaadkiisa intaanan galin xuquuqda qofka iyo waajibaadkiisa waxa ugu horeeyo ay tahay inaan fahamno laba shay oo kala ah mabaadi'da iyo qiyamka waxay yiraahdaan mabaadi'da waa waxyaabaha asaasiyaadka ah ay maxaa la dhahayaa aysan isbedelin meel kasto aad tagto iyo waqti kasto aad joogto isma bedelaan tusaale ahaan aqeedada qofka muslimka ah aqeedadiisa waxay ku bees garaysan tahay 11 mabda ay ku dhisan tahay oo kala ah shanta arkaanul islaam iyo sidoo kale to lixda arkaanul iimaan 11 kaas mabda meel kasto aad joogto nolosha heer kasta aad ka gaarto waqti kasta aad joogto isma waxa ku xigo qiyamka marar qaar way isbedeli karaan marar qaarna sidoo ay ahaan karaan tusaale ahaan waxa suurtagal ah qof ayaa qiyamkiisa waxay yihiin in aan israaf sameeynin maxaa la dhahayay hadii uu waqti la joogo ama dhagaalaha soo galo ama jeebkiisa uu fiicnaado waxa suurtagal ah inuu israaf iyo maxaa la dhahayay bixinta lacagaha iyo waxyaabahaas ay ku bataan waxa sidoo kale maxaa la dhahayay qiyamka kamid ah oo isbedeli karo iyadana tusaalahan waqtiga ka faa'iideysiga waqtiga waxa suurtagal ah sanadaha qofku waxbarashadiisa dugsiga sare uu ku jiro ama waxbarashadiisa jaamacad uu ku jiro in waqtigiisa si zaid uga faa'iideysto laakiin marxaladaha qaarna aanan si fiican ama si zaid aanan uga faa'iideysan qiyamka sidaas ay kala yihiin marka labadan shay markaad fahanto waxaad hoos u sii daadegaysaa oo fahmi kartaa waxyaabaha xuquuqiyaadkaaga ah iyo waajibaadkaaga qofka saaran xuquuqda marka la yiraahdo xeerar ay kala leedahay tusaale naftaada xuquuq gaar ah ay kugu leedahay dadka qaraabadaada ah ehelkaada ah waalidiintaada ama caruurtaada ah ayagana sidoo kale xuquuq gaar ah ay kugu leeyihiin dadka bulshada aad ka soo jeedo ama aad ku dhex nooshahayna ayagana waxay kugu leeyihiin xuquuq gaar ah ay kugu leeyihiin waajibaadkana sidaas ay la mid yihiin marka maxay yihiin xuquuqdayda bulsho aan leeyahay bulshada ugu leedahay iyo aan ku leeyahay iyo sidoo kale waajibaadka bulshadeeda iga saaran maxay yihiin tusaale ahaan xuquuqda qofka fardiga ah uu bulshadiisa ku dhex leeyahay waxyaabaha ugu horeeya waxa kamid ah caafimaadka waxa ku xigo waxbarashada waxa ku xigo amniga waxyaabaha asaasiyaadka ah waaye qof kasta oo bulshada kamid ahna uu xaq u leeyahay inuu helana ay waajib tahay sidoo kale xuquuqiyaad kale ayaa jiro waxa kamid ah qofka fikirkiisa inuu cabiri karo yani markasta afkaarta uu qabo waxyaabaha uu ku ganacsan yahay asigoon ka cabsan waa lagu xiri doonaa hebelaasaan ku dhihi doona ama dadaas sidaan ku arki doona aan isdhihin ayaa waxaa la rabaa inuu yani fikirkiisa si sax ah si ixtiraam uu ku jiro uu cabiran karayo waxay yiraahdaan tusaale ahaan xuquuqdaada ama xoriyadaada waxay ku eg tahay halka ay ka bilaabato xoriyada qofka kale adigoon qof kale xoriyadiisa ku xadgudbaynin qof kale magaciisa aadan ku xadgudbaynin shakhsiyadiisa aadan ku xadgudbaynin ayaa inta aad xaq u leedahay ee xuquuqdaada ah ee xoriyada ku siinayso ay tahay inaad ka faa'iideysato sidoo kale waxaa jiro waajibaad ku saaran oo bulshada kugu leedahay ayaa jiro waxa kamid ah waajibaadkaas bulshada kugu leedahay waxa kamid ah in wadciga bulshadaas waxyaabaha akhlaaqiyadka bulshadaas ay leedahay aad ilaaliso aad ixtiraamto waxyaabaha waajibaadka ku saaran ay kamid tahay waxyaabaha sidoo kale ay tahay inaad ilaaliso waxa kamid ah aad bixiso hadii tusaalaan zaka ay ku saaran tahay ama canshuuraad ay ku saaran yihiin inaad bixiso dawladda bulshadaasi dawladda ayaa bulshada mas'uul uga ah oo ka qaadayso adigana waajib ay kugu tahay waxyaabahaas inaad sameeyso ay kugu tahay ay waajib kugu tahay marka fardi kasta hadii uu ilaaliyo waajibaadka ka saaran bulshadiisa meeshaas waxa qasab ah in ay kasoo dhalato bulsho dheelitiran oo xuquuqdeeda iyo waajibaadkeeda ilaalsan karto waajibaadkana bixin karto ay halkaas kasoo dhalinayso waxa kale sidoo kale qofka fardiga ah bulshadiisa waajibaadka ka saaran kamid ah marka ay tagto codeynta oo kaleeto hogaamiyaha la dooranaa gudoomiye degmaa la dooranaa marka ay doorasho tagto oo sanaadiyada codbixinta la soo dhigo iyadana sidoo kale waxa laga rabaa inaad codbixin sameyso oo aad codkaada siiso qofka aad isleedahay masuulka aad isleedahay mabaadi'da bulshadaadi wuu ilaalin karaa xoriyada bulshadaasi ay leedahay iyo adigu aad leedihiin wuu ilaalin karaa aad isleedahay ayaa sidoo kale inaad u odeyso ay tahay
waxa meesha ku jiro sidoo kale in qofka maxaa la dhahayay uu ilaaliyo bulshadiisa dhexdiisa uu ku ilaaliyo haddii tusaale ahaan bulshada aad ka soo jeedo ama waddanka aad ka soo jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ma qadaray lasoo weeraro ama lasoo hujuumo cadow khaariji ah u imaado waxyaabaha ku saaran waxaa ka mid ah inaad difaaca ka qayb qaadato sidaad ama lacag ugu qayb qaado ama shakhsiyan intaad kacdo ka qayb qaado ama gubaabin ugu qayb qaado iyadan waajibaadka ku saaran oo ay tahay inaad ka qayb qaadato ayay ka mid tahay bulshadaasi sidaas marka waxaa ku dhalanayo bulsho isku xiran oo maxaa la dhahayay yani fardi ahaan iyo bulsho ahaanba waxyaabo badan oo ilaalsan karto ayaa halkaas kasoo baxayo aan u imaano dhanka xuquuqda insaanka ee dunida xuquuqul insaanka ee dunida ama xuquuqda arrimaha xuquuqda aadanaha waxa way waa malaf aad u ballaaran runtii oo ballaaran oo weyn asalkiisa balse waxaa laga soo dhiraandhiray oo laga soo qaatay diinteena islaamka maxaa la dhahay ayaa laga soo baxay waxaa halkaas ku cadaynayo tusaale ahaan declarationkii ugu horeeyey ama qoraalkii ugu horeeyey ee qaramada midoobay ay ka sameysay xuquuqda bani aadamka waxaa la sameeyey 1948 ayaa faransa lagu sameeyey taasna waxay ku tusaysaa in kumanaan kun oo sano oo ka hor boqolaal sano oo ka hor diinta islaamka ay xuquuqdiyaadkii asaasiyaadkii wixii dhan ay soo dejisay tusaale aan soo qaadno markaan eegno tusaale caruurta oo kaleeto caruurta waxaana la saaray laga bilaabo naas nuujintooda magac u bixintooda nafaqadooda iyo maxaa la irsaaqdooda iyo sidoo kale tarbiyadooda waa waajib diini ah oo na saaran canuga aad dhashay ilaa uu ka qaangaarayo maxaa la dhahay waxaa ku saaran wanaajinta tarbiyadiisa nafaqadiisa iyo wax kasta canugaas uu u baahan yahay adiga ayay ku saaran yihiin sidoo kaleeto mas'alada haweenka yani maxaa la dhahayay gabadha qofkii gabdha dhalo saddex gabdhood dhalo koriyo tarbiyadooda wanaajiyo nabiga ayuu salawaatullahi wasalaamu calayhi ayuu jannada la galayaa sida nabigeena ka sugnaatay nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee sidoo kale marka ay tahay haas waxaa la rabaa in lagu macaamilo keliya mabda islaamiga ah ee qur-aanka ku xusan ima imsaakun bilmacruufin aw tasriixun biixsaanin labadaas marxaladooda un baa ku banaan in haweeneyda aad qabto aad macruuf ku haysato aad wanaag iyo dhaqan wanaagsan aad iskula joogtaan iyo inaad si ixsaan leh tasriix aad u samaysaan sidaasna aad maxaa la dhahayay bulshada caafimaadkeeda iyo badqabta bulshada aad ku ilaalisaan masaladaha reer galbeedka ugu cadcad ay nagu haystaan oo markasta doodaha la galo ay dadku qabsadaan waxaa ka mid ah ama ay ku qasbaan shuruucdeeni wadamadeena aan kasoo jeedno inay ku riixaan oo nidaamkeeni garsoorka iyo meel kasta ay geliyaan waxaa ka mid ah mas'alad تعدد الزوجات يعني qofka oo haween badan guursado mas'aladaasi waxa way waa culimo badan oo ahalkeeda ayaa hore ugu sheekaysay maraajicdeeda kutubadeeda ayaad ku laaban kartiin balse si kooban hadaan u sheegno aan u dhaxo waxa way waa mas'aladaas waxay dawo u tahay cudurro ku dhacayo bulshooyinka ay dawo u tahay dawadan waxaan ognahay waxay leedahay shuruud lagu qaato yani qof calaamadihii oo daawo dhakhtar usoo qorin daawadaas iskama qaadan karayo dawadaas maxay tahay tusaale ahaan halhaas labahaas saddexaas maxaa la dhahayay qofka ma guursan karayo ilaa uu cadaalad uu samayn karayo haddii uu ka cabsanayo inuu cadaalad sameeyo fawaaxida hal hab ha ku ekaadaa la yidhi yani yaa cadaalad inuu sameeyo ka cabsanayo qof damiirkiisu nool yahay oo maxaa la dhahayay xaqa qofka bani aadamka kale inuu ilaalin karo iyo inaysan ilaalin karayn isgaranaya ayaa wuxuu ka fikirayaa haddii aad maxaa la dhahayay aad samayso badsashada haweenka haddii aad samayso ama cadaalad samayn karaysa qofka mas-uulka ah ayaa laga rabaa taasna waxaa way waxaa la rabaa in lagu daro nidaamadeena garsoorka maxaa la dhahayay qofka aanan kasoo bixi karin quudinta iyo awood ahaan iyo dhan kasta aanan kasoo bixi karin in haweenkiisa u cadaalad faro yani qaanuunka sharciga ayaa laga rabaa inuu qabto oo maxaa la dhahayay gacanta ka qabto oo dhaho yani hooshas kama soo bixi kartid ama sidaan way sida meeshas ay fayn khiftum alla tacdulu saas loo sheego oo maxaa la dhahayay dadka garyaqaanada ama garsoorada ah ay arrimahaas ay adeeyaan waa sheegnay marka ay gabadha marka ay haas tahayna sida loo ilaaliyo marka ay gabadh yar tahay qofka uu dhalina fadliga ay u leedahay tarbiyanteeda waa soo sheegnay marka ay hooyo tahay waa kasii daran tahay haweeneyda marka hooyo tahay waxaa way waa maxaa la dhahay waa meesha ugu dambaysa waay aljannatu taxta aqdaami lummahaat jannada waxay ku hoos jirtaa lugaha maxaa la dhahay hooyooyinka ayay ku hoos jirtaa yani marka yani islaamka saas ayuu u qiimeeyay haweeneyda markasta yani ay reer galbeedka ama nagu haystaan sidoo kaleeto marka qofka uu maxaa la dhahay uu weynaado dadka waaweyn marka la yiraahdo waxaan dhahanay dadka waaweyn ima waalid ay ku yihiin ima maxaa la dhahay waxay ka mudan yihiin ixtiraam iyo waqri iyo maxaa la dhahay waxay ka mudan yihiin inaad
akhlaaq ahaan aad u ilaaliso u daryeesho ay ku saaran tahay haddii waalid ku yihiin ama ay ku dhaleen ama qaraabo dhow aad tihiin waxaaba ku saaran maxaa la dhahay waqadaa rabbuka allaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaanan way ima yablugana cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffi walaa tanharhumaa macnaha haddii waalidkaadi agtaada ilaahay subxaana watacaala fadligaas uu ku siiyo inay agtaada ku gabowaan aada gaarto waa raxma min allahi subxaana watacaala ilaaha ku siiyey waxaa waajibkeeda ku saaran inaad kula macaamisho biixsaanin iyo weliba maxaa la dhahay wax dheeri ah aad kula macaamisho ayaa laga raba markaan dhahno marka waxyaabahan aan ka sheekeynayno xuquuqda iyo waajibaadka diinteena islaamka iyo xuquuqda kale waxyaabahan dhan halkee lagu damaan qaadi karaa oo maxaa la dhahay waxaan lagu fulin karayaa waxaan ognahay reer galbeedka mas'ale ay fahmeen oo anagu aan fahmi la-aanahay dunideyna ayaa jirto maxay tahay mas'aladaas qawaaniinta waxay leeyihiin laba jaanib ayay leeyihiin qawaaniinta tusaalehaan waxaan qabnaa anaga tusaalehaan wax la yidhaahdo al-amru bilmacruufi wannahyi can ilmunkari in kheyr lisfaro humahana liska reebo maxay yihiin dhan marka laga eego waxaa weye waa yani in hadal ahaan dadka xumaha looga reebo iyo maxaa la dhahayay wanaagana loo faro waayo balse dhankii tadbiiq camaliga ahaa fulintii ahayd ayaa aada looga gaabiyey halka reer galbeed ay wixii wanaagsanaa intay qaateen ay qawaaniintooda iyo dasaatiirtooda iyo waxooda ay ku fulinayaan ay faa'iidadii mirihii kala soo baxayaan anaga waxaan haynaa keli ah khudabtii iyo ajaladihii iyo wax laisu sheegayo xoogaan saarnaa wax waa isu sheegnaa diintii waa la faafiyaa balse waxay u baahan tahay ciddii fulin lahayd ayay u baahan tahay oo qawaaniintaas fulin lahayd tadbiiq ahaan u fulin lahayd marka lagu leeyahay reer bani israa'iil ilaahay subxaana watacaala wuu nacladay waxaa lagu nacladay lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryama dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu munkar ay sameeyeen iskama celin jirin يعني منكر كاس لسه علينا هذا الكلية ما لسه علينا ما هذا الكلية لسه ما علينا وحأوجه ريو منكر لسه عليه وهاوي قانون قرصور أياجرو كاس وحافلين أيو دولة أيام مasuulka inay fuliso tusaale xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa 40 ku yaalay ahaa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi aw fa bilisanihi marka hore maxaa la soo hormariyay gacanta la soo hormariyay gacanta adiga qof wax uu sameeyay inaad laamiga kula dadaasho ama maxaa la dhahay kaliya ma ahan waxaa suurtagal qof wax sameeyay aragtay inaad booliska gaarsiiso waxaad aragtay qof wax qalday aragtay inaad u sheegto maxaa la dhahay cidii wax ka qaban karto ama garsoori lahayd qofkaas gacan ahaan u qaban lahayd hadii taas aadan haysan kadib waxa iimaanayso inaad qofkaas nasiixan kalimahan ugu nasiixayso hadii aad taas aad sameyn weyso kadib waxa iimaana inaad qalbiga ka lacnato ama ka nacdo ayaa halkaas iimaanayso halkaas ayaan ku soo koobaya darsigeeni maanta ee kamid ahaa adiga iyo bulshada ee ku saabsanaa xuquuqda iyo waajibaadka fardiga ka saaran bulshadiisa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan rajaynayaa in laga faa'iidaysan doono